dowladda hoose caasimadda Hargeysa ee gudida horumarinta degmada Axmed Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa ayaa si wada jir ah uga bilaabay olole lagu baneynayo wadooyinka xiran ee degmada Axmed Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadaha Cali Roble iyo Hodan Hills waxaana la baneeyay 13 wado oo dhex mara xaafadahaasi sidoo kalena waxa xaafada Hodan Hills ka socday drainage loo sameeyo wadadaasi dhex marta xaafada Hodan Hills ee magaalada Hargeysa gudida horumarinta degmada Axmed Macalin Haruun ayaa uga mahadceliyay duqa caasimadda Hargeysa ololahan uu kala qayb galay isla markaasina sheegay inay dawladda hoose mar walba ay garab taagan tahay uga mahadnaqina maamulka dawladda hoose haduu madax yahay iyo haduu mid yahay Macalin Haruun waxa aan maanta la baneynayo waad aragtaan oo drainage ba socda waxa socda in wadooyinkii oo xidhnaayo la wada baneynayo waxay garab taagan gudoomiyihii Macalin Haruun runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa mahad Ilaahay baa iska leh ummaduna dawladda kaliya wax ma qaban karto ama dawladda hoose kaliya wax ma qaban karto waxa in la iskaashado baa muhiim ah shacabigana waxaan ugu soo aan ku boorinayaa ummadahu adduunka markaad meel walba martay iyaga wadamadooda dhista shacabka dhisa iyo dawladda hor socota gudoomiyaha degmada Axmed Macalin Haruun garyaqaan Maxamed Geljire ayaa isaguna halkaas ka hadlay isla markaasina sheegay dhowr cishaan jecelahay inaan maartay wadabaneyntaan ku jirno saakay maartay runtii noo bilaamatay halkan maartay xaafadan imika Hodan Hills ilaa 18 wado oo runtii xidhnaa oo maartay wadooyinka maartay garanwaagu halkan geedka garanwaaga la waa ogtiino maartay si xawli iyo si degdeg ah ayuu baxaa wadooyin runtii aad iyo aad u xidhnaa ayaanu baneynay oo ilaa 18 wado maartay xaafadan oo quray markaan taaganay Hodan Hills iyo loo baahnaa in la maro waa arkaysayno meelo kayma noqday oo runtii tuugtana ku soo gabanaysay dadkuna aanay marahayn oo runtii dadku xaafadda ay maartay la ildarnaayeen ayaanu baneynay alxamdulillah waana de shaqadeedii maartay dawladda hoose ahaan aan u eegmanay hawshaana waxa maartay runtii nala garab taagan oo mar walba maartay hooyihii nala garab taagan gudida horumarinta ee maartay degmada Axmed Macalin Haruun dhinaca kale waa arkaysaano wadadan imika laamideen taaganay waa tii aan berigi dhaweed sameynay xaafadan Hodan Hills waxa maartay imika laga wadaa habkii biyo mareenka drainage systemkii baa laga wadaa maadaama wadadana tahay wada qaaliya oo lacag badan ku baxday in maartay biyaha laga dhowro oo maartay runtii biyuhu hareeraha ay ka maraan drainage waa ka arkaysan oo socda dawladda hoose iyo maartay waxa iska kaashaday iyo maartay gudida horumarinta xaafadda ayaa runtii iska kaashaday insha Allah maartay sida ugu dhaqsaha badan oo dhamaanaya tay gudi maartay ku suntan wax qabad oo maartay mar walba dabada naga galaysa oo na kaashanaysa oo maartay na kicinaysa oo runtii deeyadu wax walba la diyaara waxaan rajaynayaa dadka kale ee maartay runtii xaafadaha kale ama degmooyinka kalena inay maartay runtii maartay iyaduna saas oo kale ay maartay ugu daydaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa duqa caasimadda iyo maartay ku-xigeenka iyo xogeyaha fulinta iyo gudida maartay fulinta caasimadda Hargeysa oo runtii iyaguna shaqadan maartay aanu hayna saaka runtii noo igmaday Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.